maalinimadii shalay ee arbacada dalka turkiga waxay u ahayd maalin farxad leh, maalin qalbiyada dadka turkida si weyn ugu qormi doonta, maalin farxadda iyo dhoola caddaynta Erdogan dhulka uu kala dhici lahaa. haddaba maxaa dhacay? waxaa lagu guulaystay markii ugu horreysay, tijaabadii ugu horreysay in ay hawada gasho diyaaradda casriga ah ee dagaalka ee Kaan la yiraahdo, oo ah mid ka mid ah diyaaradaha adduunka ugu casirsan oo turkiga uu farsameeyey. diyaaraddan jiilka saddexaad, Erdogan waxa uu ka yiri intaanan idiin soo gudbin aynu wax yar ka xusno sida turkiga baahida weyn ugu qabay diyaaraddan. mashruuca diyaaraddan lagu dhisay sanadkii 2016 ayaa la bilaabay, laakiin sanooyinkii ugu dambeeyey dacayad weyn ayaa lagu hayay, gaar ahaan qaybo ka mid ah qalabka diyaaraddan iyo farsamada oo shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha dagaalka farsameeya iyo weliba xitaa wadamo ka tirsan NATO oo turkiga uu ku jiro ayaa dacayad ku furay diyaaraddan, oo waxay lahaayeen oo ma dhigmi karto diyaaradaha casriga ah ee adduunka. laakiin turkidu way ku adkaysteen diyaaraddan in ay farsamaystaan, waxaana diyaaraddan Kaan la yiraahdo imika la sheegaya in ay u bedeli doonto turkida diyaaradaha casriga ah ee Mareykanka ee F-16 iyo F-35. madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay arrintan waxa uu ku tilmaamay inay tahay guul taariikhi ah, waxaana isagoo arrintani ka hadlaya uu yiri maanta waxaynu marqaati ka noqonnay mid ka mid ah maalmihii ugu farxadda badnaa nidaamka difaaca ee waddanka turkiga. diyaaraddan aynu soo saarnay ee Kaan waxa ay ku tallaabsatay maanta in markii ugu horreysay hawada ay gasho, waxaana xilligan ay tahay xilli muhiim ah oo aynu u baahannahay diyaaraddan jiilka shanaad. madaxweyne Erdogan waxa sidoo kale uu sheegay in dhammaan qalabka diyaaraddan ay yihiin kuwa gudaha lagu farsameeyey, waxaana la sheegay diyaaraddan in tijaabadii markii la sameynayay farxad Erdogan iyo mas'uuliyiinta kale ee waddanka turkiga ay la dhaceen. arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli sanooyinkii ugu dambeeyey turkiga horumar weyn uu ka samaynayo sanacada dhanka militariga iyo dhanka teknolojiyadda. turkiga oo ah waddanka sideedaad ee ugu awoodda weyn caalamka dhanka militariga, 145 waddan marka laga soo qaado, oo ah waddamada ugu awoodda badan dhanka militariga, ayaa waxa uu ka gelayaa kaalinta sideedaad. waxaa kaloo lagu tiriyaa inuu yahay waddanka labaad ee ugu ciidanka iyo ugu awoodda badan gaashaanbuurta NATO marka laga tago Mareykanka. haddaba diyaaraddan waxay ku soo aadaysaa tijaabada imika la sameeyey iyadoo xifaaltan adag uu ka dhexeeyey turkiga iyo Mareykanka, kaasi oo ku salaysnaa iibka diyaaradda la yiraahdo F-16. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markuu xukunka ka sii degayay waxa heshiis uu la galay Erdogan, heshiiskaasi oo ahaa in laga iibiyo diyaarad aad u fara badan oo nooca F-16 ah turkiga. laakiin markii xukunka uu qabtay madaxweyne Joe Biden cagta ayuu saaray heshiiskaas, waxaana markaasi lagu eedeynayay Erdogan in Sweden iyo Finland uu u diidan yahay gaashaanbuurta NATO inay ku soo biiraan, iyo xiriirka faca weyn ee saaxiibtinimo ee kordhay ee u dhexeeya isaga iyo Putin. arrimahaasi oo isbiirsaday waxay keeneen in turkigu markaas uu isku dayo inuu isku tashaday, inkastoo dhowaan markii uu aqbalay Erdogan in Sweden ay ku soo biirto gaashaanbuurta NATO la ogolaaday diyaaradahaas in laga iibiyo, gaar ahaan nooca F-16 iyo qalabkooda dayactirka. haddana waxay turkidu si weyn ula yaabeen in diyaaradda kale ee casriga ah ee F-35 laga iibiyey Greek.